السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa ABC News Now. daawadayaal ku soo dhawaada warka maanta. taariikhdu waa 5 bisha Oktoobar 2025 waa maalin Axada. wararka maanta waxaa idin soo gudbin doona aniga waa Mustafa Cabdullaahi. daawasho wanaagsan. qodobada warka ugu doorka weyna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo halkaas oo uu kaga hor yimi madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. magaalada Muqdishona waxaa lagu soo afjaray weerarkii ay soo qaadeen argagixisada Al-Shabaab kaas oo uu ka socday ilaa xalay saq dhexe. waa tahay daawadayaal qodobadaas ayaynu ku faahfaahin doonaa warkeena maanta. daawasho wanaagsan. madaxweynaha dalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo halkaasi uu kaga hortegay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. isla markaana waxa uu halkaasi salaan ku qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud garoonka diyaaradaha Kismaayo ee loo yaqaano Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan Airport. dadka ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyay. sida wada arkaysaanba madaxweynaha waxaa halkaas ku soo dhaweeyay shacab fara badan oo iyagu calaamada Jubbaland iyo calanka Soomaaliya sitay. halkaasi waxaa iyagoo sidoo kale ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kale oo ka kala socda maamulka Jubbaland iyo maamulka Muqdisho. kulankan ayaa ahaa mid la sugayay in dhaweydba oo ay u balansanaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne Axmed Madoobe. waxaa ka shaqeeyay kulankan is-aragga labada dhinac dalalka Kenya iyo Ethiopia oo iyagu markaasi u kala dab qaadayay sidii ay kulmi lahaayeen labadooduba. waxaa wafdi ka socda oo hogaaminayaan waftiye kala duwan oo labada dal ka kala socda Kenya iyo Ethiopia ayaa waxaa kala hogaaminayay labada taliye sirdoon ee labada dal ay kala leeyihiin. halkaasi oo markii hore ay Kismaayo sii tageen isla markaana Axmed Madoobe ay ku qanciyeen inuu aqbalo in xasan sheekh maxamuud uu soo booqdo magaalada Kismaayo. xasan sheekh maxamuud ayaa isagu waxa ay ka go'an tahay sidii uu la heshiin lahaa Axmed Madoobe isla markaana uu uga adkaan lahaa mucaaradka isbahaystay ee Puntland iyo madasha samata bixinta. si kastaba ahaatee kulankan waxaa ka soo bixi doona ilaa hadda lama oga, laakiin waxa aynu ognahay in Axmed Madoobe uu go'aan la soo qaatay kooxda mucaaradka ah ee madasha samata bixinta iyo maamulka Puntland Siciid Axmed Dani. haddaba kulankani ma waxa uu noqon doonaa mid isagu maridhal ah oo markaasi xasan sheekh uu ku guulaysto mise waxa uu noqon doonaa mid Axmed Madoobe uu ku guulaysto? labada dhinacba warkaasi si dhaqsa ayuu u soo bixi doonaa. sida wada ogtihiinba Axmed Madoobe isagu Muqdisho waaran ayaa ka yaala. waarankaasi oo uu xasan sheekh ku xidhay inuu marka hore cafiyo isla markaana uu aqbalo in dowladda Axmed Madoobe ay sax tahay oo si saxa lagu soo doortay. taasi oo iyadu ku ah caqabad weyn xasan sheekh, balse xasan sheekh waxba kuma aha in uu aqbalo arrintaasi si uu kala jibiyo mucaaradka markaasi kasoo horjeeda. dhinaca kale mucaaradka samata bixinta iyo Siciid Dani iyagu meel ayay wax u yaalaan, waxaana ka go'an in sidii dhaqso doorasho loo geli lahaa sanadka dambe looguna diyaar garoobi lahaa sidii dib loogu noqon lahaa teendadii Afisiyoni. halka xasan sheekhna uu wato qorshihiisa ah hal qof iyo hal cod si markaasi uu doorashada dib isagu ugu guulaysto oo qorshihiisa uu wato ay noocaasi ay tahay. waa tahay daawadayaal warkaasi halkaa ayaanu kaga baxaynaa xasan sheekh maxamuud. wixii warar ka soo kordhaa kulamadooda ay kulmi doonaan maanta iyo berri waanu idinla soo socodsiin doonaa hadba warbixinta ka soo baxda. waa tahay daawadayaal warkeena kale ayaa waxa uu ku saabsan yahay kooxda Al-Shabaab ee khawaarijta weerarkii iyo qaraxii shalay ay la beegsadeen godka Jinacow ee saldhigga Nisa halkaasi ay ku leedahay ayaa la soo afjaray. dowladda ayaa ku dhawaaqday inay soo afjareen xalay saq dhexe oo ay halkaasi ay ka dagaalamayeen muddo ku dhowaad 10 saacadood ah. khasaaro badan ayaa jira balse dowladdu iyadu ma ay faahfaahin khasaaraha rasmiga ah. dib ayaan ka soo sheegaynaa ayay yidhaaheen, balse waxaa xaqiiqa ah in halkaasi ay ku wada dhinteen
nimankii argagixisada halkaasi soo weerartay sida la sheegayo tirada soo weerartay argagixisada halkaasi ayaa waxay ahaayeen 7 iyo 8 labarba waa ay soo kala baxeen halkaasi waxay kooxda khawaariijta halkaasi soo weerartay waxay ka koobnaayeen 8 xubnood halka 2 ka mid ah iyagu markiiba ay gaariga isku qarxiyeen ay wateen 6 kalena ay gudaha sida la sheegay waxay wateen gaariga ay qarxiyeen waxa uu ahaa gaari ay ku soo buufiyeen midabka ciidamada nisa isla markaana taarikada nisa ayuu lahaa waxa kale oo la sheegay in goobahan ay yihiin goobaha ugu amniga adag magaalada muqdisho oo aadka loo ilaaliyo waxa ayna soo dhaafeen checkpointiyadii ugu muhiimsanaa ee madaxtooyada laga ilaalinayay sida checkpointiga ceelgaabta ku yaala iyo checkpointiga kale ee dhinaca boondheere ku yaala waxa ay ka soo galeen xagga dambe ee boondheere waxa gaarigan uu ku meeraysanayay sida ay sheegeen dowladdu oo kaamarooyinka laga duubo magaalada laga arkay in uu ku meeraystay dhowr goor checkpointiyadaasi ka madaxtooyada iyo ka ceelgaabta markii dambena uu ka soo galay ka xagga dambe ee dhinaca boondheere wararku waxa ay sheegayaan in saraakiil fara badan oo ciidanka nisa iyo ciidamo badan oo ciidanka nisa ay gudaha ku jireen jeelka islamarkaana aan la garanayn waxa xaaladkooda halkaasi ay ku sugnaayeen balse dowladda ayaa laga sugi doonaa warbixinta halka ay ku dambeeyeen ciidankaasi la la'aa saraakiil ayaa la la'aa iyo ciidamo kale wararku waxay sheegayaan in ay ciidamada soo gaareen khasaare islamarkaana ay jiraan qaar dhintay ciidamada harmacad iyagu markaasi u gurmaday halkaasi iyo ciidamada gaashaan oo markii dambe halkaasi iyaguna tegey waxa kale oo la sheegay in ay ciidamadu halkaasi isugu tageen kuwa sida aadka ah u tababaran ee gaashaan harmacad iyo gorgan intuba halkaasi ay la dagaalameen kooxdan arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdi barre iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha nisa mahad salaad intuba ay shalay gelinkii hore ay magaalada muqdisho ka bilaabeen in ay nadiifiyaan waddooyinkii xidhnaa sanadaha badan waxayna sheegeen inay waddooyinkaasi ay fureen oo ay hadda magaaladu amni tahay taa waxaa kasii horreysay xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii jimcihii isagu sheegay in uu magaalada muqdisho amni tahay oo isagu aanu u baahnayn inuu gaari tignika ka haysto sidaa daraaddeedna aan loo baahnayn in magaalada gudaha lala soo galo baawur tignika iyo qoryo arrintan ayaa al-shabaab waxay kaga jawaabaysay sidii ay u xaqiijin lahaayeen in ay iyagu weli ay khalkhalka magaalada ay gacanta ku hayaan iyo amnigeeda amni darrada ay iyagu markaasi u horseedi karaan markay doonaan saddexda arrimood ugu muhiimsan ee al-shabaab ay ka jawaabaysa ayaa ah furitaanka waddooyinka waaweyn ee muhiimka ahaa ee xidhnaa taasoo caqabad ku ahayd dadka isu socodka dadka iyo qodobka labaad oo ahaa inay xasan sheekh u jawaabaan in ay weerari karaan oo ay madaxtooyada ku weerari karaan sida la sheegaya waxa ay u socdeen in ay weeraraan madaxtooyada balse waa ay u suurtoobeeday oo sida ilawareedyo laga helay ay xaqiijiyaan in laga soo celiyey checkpointiga madaxtooyada laga galo ta kale iyadana ah jawaabtu waxay ahayd furitaanka waddooyinka la furay iyo hadalkii xasan sheekh uu sheegay in uu isagu bilaa tignika uu ku socdo magaalada muqdisho arrinta saddexaad oo iyadana meesha ku jirtaa waxay tahay dagaalada kaga socda dhinaca awdheegle oo al-shabaabku halkaasi lagaga adkaaday oo dowladdu ay ku gacan sarrayso oo khasaare baan la gaarsiiyey in ay halkaasi iyaguna ay si culeyskaasi uga dhimo ay magaalada muqdisho ay dib uga bilaabaan khalkhalkii qaraxyadii iyo weeraradii waa tahay dawadayaal wixii warar faahfaahina ka soo baxaa arrimahan marka ay soo baxaan dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa waa tahay dawadayaal warkeenna maanta intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa wararka soomaalida aan maanta idiin soo gudbaynay intaba waad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu